xafladan oo ay ku qalin jabiyeen 85 arday oo wax ka dhigata iskuulka Al-Cimra ee magaalada Gaalkacyo ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyin kadib markii ay dhameysteen waxbarashada caafimaadka iyo luqadda Ingiriiska. xafladda waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, odayaal dhaqameed iyo waliba qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda maanta qalin jabisay. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha iskuulka Al-Cimra Macallin Bashiir nala wadaaga xafladan gabagabada ah ee shahaadada ku doonsin doono tirada dhan 83 arday oo isugu jirta qaybta caafimaadka oo 61 arday ah iyo 22 oo ah qaybta Ingiriiska. alxamdulillah wadadaal dheer ay soo galeen iyo juhud badan ay ku soo bixeen waqtigooda ay ku soo lumiyeen ardayda maanta shahaadada qaadanaysa ayagoo markaa ay soo lumiyeen waqti badan ay macna kaga soo faa'iideysteen. waalidkan ay garab badan ku siiyay aad ay u mahad celinayaan. kooxahan markii galaaska ay bilaabayeen ma ka badnayn numberka ay ku fadhiyaan inta ka macnaad loo gareysay waa in aad u yar weeyaan waa 12 qofood ka hartay. waxbarasho waxaan ognahay marka dagaal la gelayo waxa galaaska soo xaadiraysa oo yaraan 89 soo xaadiraysa doonta marka badda bartamaha ay marayso qaar ka qoysanayo macnaheedu ka daadanaya. marka kooxahan maanta adiga ay shahaadada qaadanaysa waxay soo muujiyeen dadaal dheer ay soo muujiyeen. Suldaan Cabdi Jaamac Gorod Qaamuus oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Mudug ayaa sheegay inay aad muhiim u tahay waxbarashada, isla markaasina waxa uu bogaadiyay ardayda maanta qalin jabisay. waxaa faraxsan waalidkii ilmahan dhalay aad bay u faraxsan yihiin waayo qof walba wuxuu beerto ayuu cunaa. haddaad wax wanaagsan beertid oo arday ay kaaga soo baxdo luqadihii yaqaana, caafimaadkii yaqaana, sayniskii yaqaana, diintii taqaana, waxaad beeratay fruit macaan oo very sweet fruit baad beeratay. taasaad cunaysaa insha allah. haddaad qori u dhiibtid ilmahaaga ama aad ku soo boorto gadaama raalli aad uga ahaatid inay qori qaataan isbaarooyinka taagnaadaanna kolley waxaad beeratay waad ogsoontahay. waxaan xaqiijinayaa magaalada tan inay hore u socoto, magaaladan Gaalkacyo horey u socotaa, aqoonteedu horey u socotaa. qaar ka mid ah ardaydii maanta la guddoonsiiyay shahaadooyinka ee ka qalin jabiyay iskuulka Al-Cimra ayaa iyaguna dareenkooda cabiray. Axmed Qaliib Geedi, RTN, Gaalkacyo.